calanka.com. My new SRSD. Unless you want to have a brief conversation with them. I'd like to welcome the distinguished. What the people of Jubaland expected, people of Jubaland to give the floor to MP Khadija Adan, who represents. The heads of state of the African Union decided that Africans from beyond the borders of Somalia would come here under the AMISOM to support the people of Somalia through their leaders. That's why Kenya is here. That's why Ethiopia is here. That's why Uganda, Burundi, and other police contributing countries and Djibouti are all here. We have no other agenda. The agenda is to work hand in hand with Somalia, hand in hand with the leaders of this country to promote peace, because the agenda of the African Union will be compromised if peace does not prevail here. maxaad qabatay oo inaan booqashadan halkan ku nimaano booqashadana waa tii ugu hore ciidamada Kenya oo dhibaato badan ka soo gaadhay ceel cadde waan uga tacsiyeenayaa dhibkii soo gaadhay waxaa kaloo ka tacsiyeenayaa propaganda tiro badan oo reer Jubaland aynan ahayn dadka ka hadlaya ama dad ku matalaya deegaanka Gado oo ka hadlaya xasuuq la geystay dhibaato badan oo dhacday arrintaas oo Prime Minister Magaalada ka hadlay aan ahayn sal iyo raad arrin midna aan ahayn waxa kaliya jira dhacay waa baraka dadka Soomaalida ee ku dhintayna number aad u tirsan uu yahay waxaan isleeyahay waa propaganda siyaasadeed oo cid aan reer Jubaland ahayn dalna Jubaland ay tabinayso taas waana ka tacsiyeenayaa apologize-na waan ka bixinayaa dadka barakacay ee Soomaaliyeed ee dagaal meel ka dhac waa lagu barakacay ka barakacayna waxaan doonayaa in loo fidiyo wixii macaawino ee kaalmo loo geysan karayo aan loona maqlin cid kasta oo propaganda ama London joogta ama meel kale joogta oo ka fidisa oo iska dhigaysa inay shacabka ka naxaysa ama matalayso arrintaasina hal sariyara aan lahayn inaad doonaysaan in laydin calanka.com.